ومالنتي سدحاد ان dalkan Mareykanka uu ku sugan yahay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxay fursad u heleen inay la kulmaan madaxda ugu sareysa USAID-ka waxa ay kala hadleen arrimo dhowr aad u fara badan amurahaasina waxa warbixin naga siiyay wasiirka warfaafinta ahna boostada iyo isgaarsiinta Cilmooge bismillaahir rahmaanir rahiim kulankii maanta ka dhacay Washington DC wuxuu ahaa martiqaad official aan la yeelanaynay ahaa USAID oo Ronald Reagan House ka dhacay si aad u heer sareysa ayaa wafdigii madaxweynaha oo la kujinan kamid ahayn nala soo dhaweeyay iyagoo mas'uuliyiin oo goobjoog ah sugayso halkaa waxaa salaan ka bacdi waxaa bilaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilaabay in uu khudbadiisii barnaamijka ugu muhiimsanaa jeediyo oo ka soo bilaabay taariikh dheer dibkii dhacay wadanka 22 sano sidii transitionkii ama ku meel gaarnimadii looga baxay doorashadii adduunka dhan laga daawaday ee lagu dhisay maamulkii u dambeeyay ee ka soo bilowday doorashadii ama dhismihii qaab dhismeedkii ku yimaadeen dastuurka parliamentarianku iyo xukuumadii ka dambeysay jirta hadda siday u ahayd mid dunida dhan laga daawaday inta ka bacdi wuxuu madaxweynuhu aad uga hadlay doorka dawladdaanu ay rabto inay kaga bedelan tahay dawladihii hore oo ay ka mid yihiin in ay qiimeyso constitutionka ay wadanka waxa u yaala ay hormariso oo inay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay dawladihii hore haday dhaqaale ku bixin jireen ka horeeyay مثلا كعانكي أو كلايو بقولك وتدوات محل دي شيء المدعوين والدعالين عينك اللي بحيو وحكير لا برسنتيج أو سدهنا لو بحي أديك بالشدة مركا بدنا نحط سنة تعمد بدلي ثقافة كاس أو بقولك وتدوات كاس يكبر بس يعني أديك بالشدة لو سوي لنا سام وحاو كلا حسين مدعوينه إن وحقول مهم سن هذا ما أنت أيته أمني يحصلونه ودنك ولا سؤاليو كاس ورنا هانتي هذا ميل آدو في عن مرة ولا ليه كرو قبل هذا أي شجان رجعيسدو ما بتشرو قبل يعني مركز لغير هذا قبل مجال قبل هوين قبل أنا لقى صارن بتشرو ماشي يقوم ينيد إنكم كسو قولي شريك اسمعنا واتي لقى صاري أكتوبر كوجيدي وحمرك هذا عن ربعهن هاي أيوة المدحونه إن أن تدرج لنا سلاهر مريو adeegii bulshada sida caafimaadka waxbarashada xiriirka communicationka eelasha iyo sidii dadkii dalka dibadiisa jiray sida kuwa qaxootiga iyo kuwa kale ay ugu soo noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo waxa madaxweynuhu cadeeyay in ay xukuumaddiisa ka go'an tahay in ay la dagaalanto musuqmaasuqa taa waxay ugu jawaabaysaa oo cad inay dhistay Central Bank ay u magacaawdeen inay auditing ay ninkala u magacaabi doonto auditing la xisaabtanka ah iyo revenue authority oo si financial managementigi ama maamulkii dhaqaalaha wadanka oo u noqdo wax dunida oo cad oo qeexan oo ka maqan musuqmaasuq ama wax la tuhmi karo inuu yahay xatooyo taas aad baa loogu qancay runtii dawladdan wuxuu cadeeyay madaxweynuhu tahay dawlad isbedel doon ah isbedel doonkuna وارن أدونك الرفام كوا كادجيه قف إسبدل كوا كادجيه الله يلا تنسنا تدكو كوتشري هو أركه هي أن دني كلا عاوسة أو دني سد هذا عاوسة هي هذا NGO ما أنت تو عندنا نابل بدهنه إن أي أن نبرت بر كلون كسي الله ضبطه السيد خلاصي قفك وقف هذا حسيس ما أنت وكذا ما نسأل لك هذا برت كلون وريجي ودوان كرا كلونك تعال كده أنت حرفة إن قف الله سمايا area بدن أيوة مركز دول مري يباهد الله قوة إسكاشي عالمي أين غيرته دولة مريكانكو يحرير قطر يسوع إنت حرير كي أصل كاه هرجة جل وين أكو يمد
marka waxay ku wareegtay runtii dhinacii waxay ku wareegtay USAID oo mas-uuliyiintooda ugu sarreeyay usan nina ka maqnayn mas-uulkii ugu sarreeyay USAID-kuna aad iyo aad buu usoo dhoweeyey xogtaas madaxweynuhu oo bixiyey aad iyo aad buu usoo dhoweeyey wuxuu ku tilmaamay hadda intuu ka arko xukuumaddan hadda jirta ee Soomaaliya aad iyo aad buu usoo dhoweeyey waxa ay damacsan tahay xukuumaddu iyo tijaah ama directionka ay ku socoto xukuumaddu jirtay wax qabadkii la sameeyey oo buu yiri dunida dhan aan ku noqday in aad nabadiidkii la dagaalanteen in muxuu ahaay checkpoint maanta xawal noqotay meel muxuu ahaay cid walba hawaysanaysa inay ku noqoto oo Soomaaliya ka caawin karto adeeg ka qabsan karto bulshada waxaa kale oo iyaguna ka hadlay sidii oo kale mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee USAID-ka oo runtii lahaa kuwii dhaqaalaha ka hadlahayay kuwii xiriirka caalamiga ka hadlahayay kuwii ka hadlahayay aidka noocyada ay kala tahay iyo kuwii ka hadlahayay skill sida loogu sameeyo dadka say muxuu ahaayey u aqoonsadaan u ogaadaan wax ka bedelan wixii hore waayo maanteeto ilmaha yarka ee Soomaaliyeed ee 20 jirka ama 30 jirka markii xukuumadii hore ay dhacday 8 jir buu ahaa ruuxii muxuu ahaayey 22 sano ka hor ruuxii 30 jirka maanta taasna wuxuu yaqaan waa qori kaliya weeye iyo gacan hoorsi marka waxa la isku raacay in wada shaqayn joogta la sameeyo oo Mareykanka iyo Soomaaliya in xirfad la abuuro xirfadlayaal Soomaaliya la abuuro in experts la isdhaafsado oo la geeyo aqoon isweydaarsi la geeyo si muxuu ahaay dad Soomaaliya ama dad kale oo Mareykan ama Soomaali Mareykan ah ay u tagto xaggaas oo ay u tababarto dadka Soomaaliyeed ee shaqaalaha xukuumadda ah iyo dadka Soomaaliyeed ee kale ee la rabo inay hantaan dalkooda ama private institutions marka wax weyn oo xiriir aad u weyn runtii ayuu ahaa ama muxuu ahaay wax la dhigi karo iyo diila aad u weyn ayaanu maanta ka gaarnay shirkii halkan oo aan annaga iyo USAID aan ku kulannay madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud madaxda noogu ahaa arrintaasna way ka go'an tahay USAID in ay partner waxa loo yaqaan walaalo wada shaqeeya oo wehel joogta ay noo noqdaan guul bay ku dhamaatay iyo wada shaqeyn iyo iyadoo ballamo kale lagu ballamay in meeshaas laga sii ambaqaado sidii loo xoojin lahaa xiriirkaas sidii loo xoojin lahaa Soomaaliya 4 sano ama muxuu ahaay 2 sano from now oo maanta laga bilaabo inay noqoto mid ka duwan midda maanta ay tahay annaguna waxaan muxuu ahaay u ballan qaadnay wafdigii in ay naga go'an tahay wax kasta inaan sameeyno oo ummadda Soomaaliyeed ay diilo u arki lahayd isbedel dhab ah u arki lahayd si ay wadankoodii niyad sami ay muxuu ahaay u joogaan ugu soo noqdaan piratka waxaan ka sheekeynay sida ay hadda u gabaabsi noqdeen sida ay u soo dhiibeen lixdii u dambeysay ilaa 120 kamida piratka hadda dadka loo yaqaano ee badda wax ka afduwa siday u yimaadeen oo hadda ugu soo beereen oo raadinayaan inay soo galaan aad iyo aad ayuu wuxuu ahaa guud ahaan jawi runtii la dhihi karo waa weeye jawi fiican intaas ayaa ugu muhiimsaneed runtii maanta wixii meetingkii ku saabsanaa annaga wafdiganagii iyo USAID oo United States ah aad iyo aad baad mahadsantiin si kastaba ha ahaatee doodaasi iyo warbixintaasi dheer oo uu siinayay wasiirka warfaafinta Cabdullaahi Ilmooge wafdigan ayaa la filayaa inay la kulmi doonaan kooxo kala duwan madaxda ugu sareysa ee gobolka dalkan Mareykanka kaasoo ugu jira madaxweynaha wadanka Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu la kulmi doono xitaa maanta iyo Senator Hillary Clinton waxa kale u diyaara jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Nairobi Washington caawa habeen dambe oo taariikhdu ay tahay habeenka Khamiista ayuu la kulmi doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa la filayaa inay sii aadi doonaan gobolkan Minnesota maalinta Jimcaha ah si ay ula kulmaan isla jaaliyadda Soomaalida halkaas ku sugan Liban Hussein SNTV Washington